markiina la doorto saddexdeena guddoon hawshii ugu horreysay oo aan qabano waxay ahayd annagoon seexanin inaan ka fakarno what's next maxaa ku xiga hadda alxamdulilah waxaan garwaaqsanay galmudug guddoonkeeda inuu qof walba iska dhex arko qof walbana uu dareemo inuu yahay qofka musharaxa ah ee maaragtay calaf inuu ka celiyo mooyaane aan wax kaleeta aysan ka celin karin markiina la doortay ilaa hadda saddexdeena waxaan seexanay 3 saacadood hadday ugu badan tahay oo weliba subaxi ah aan ahayn habeenkii madaxweynayaasha sharaxan dhammaantood waa noo yimaadeen waan dhagaysanay waxa ay ka cabanayaan 3 su'aalood ayuu guddoomiyuhu weydiinaya annagana aan nood ka qaadanaynay oo ay ugu darnayd maxaad tabanaysaan ood ka cabanaysaan waqtiga ay rabaan doorashada in la qabto iyo amnigooda iyo sida ay dareemayaan iyo sida ay maaragtay wax cabasho haday qabaan dadku waa kala duwanaa waqtiyo kala duwan ayay jecel yihiin in la qabto qaar baa waxay ku leeyihiin 4 bariye nagu dhaafin qaar waxay ku leeyihiin 3 isbuuc ha qaadato qolo kale waxay ku leedahay 10 bari waxba dhibo kuma qabno qaar waxay yiraahdeen xildhibaanada maba aragno qaar kale waxay yiraahdeen maxaa la yiraahdaa annaga waxaan dareemaynaa in maaragtay meeshaas sinaani aysan jirin kuwa kale waxay leeyihiin annaga waa ku faraxsanahay sidii u socdaan qofba si ayuu dareemayaa laakiin markii dambe waxaa guul oo idinkugu bishaareynaya inay iyaga dhan wada aqbaleen wixii annaga aan soo gudoomin oo kaligiis aan qof gooniya loogu shaqayn doon xaqiiqatan maanta sidaad ogtihiin waxaan ku dhawaaqnay guddiga hawshaas qaban lahaa oo baarlamaanka matali lahaa 89 qof kulligeen ma wada howlgeli karno aqoon ayaa loo baahan yahay waxaan diyaarinay dad guddiga oo hawshaas qaban doono oo aan qiyaasayna inay maaragtay hawshaas firfircooni ay u qaban doonaan dadka ay matalaan ama se maaragtay ummadan u soo istaagtay kursigan inay si hagar la'aan ay ugu adeegi doonaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guusha nawaafajiyo